ugu yaraantii inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku geeriyooday in ka badan 10 qofna dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaadhay rasaas noolnool oo ciidanka ammaanka magaalada Boorama ay u adeegsadeen dadweyne bannaanbaxayay kuwaasi oo muujinayay sida ay uga soo horjeedaan go'aanka ay xukuumaddu galabta ku dhawaaqday ee dhigaya in bandhiga buugga xeer ciise lagu qabto magaalada Saylac. Isu soo baxayaashani ku mudaharaadayay magaalada Boorama oo gebi ahaanba isaga soo kala baxay afarta degme ee magaalada kuwaasi oo taayir gubayay ayaa tacshiiradani kala kulmay ciidanka booliiska ee magaalada Boorama. Xarunta bangiga dhexe ee magaalada Boorama ayaa ka mid ah meelaha khasaaraha ba'ani ka soo gaadhay dibadbaxayaasha caawa ku mudaharaadaya magaalada Boorama kuwaasi oo gubay qaybo ka mid ah dhismaha bangiga. Mudaharaadkani oo ilaa iyo caawa xilli dambe ka socday magaalada Boorama ayaanay jirin mas'uuliyiinta gobolka, madax dhaqameedka iyo qaybaha kala duwan ee hay'adaha ammaanka oo arrintani iyagu ka hadlay. Siyaasi Cabdi Cismaan Dhegaweyne oo hore wasiir uga soo noqday xukuumadda Somaliland ayaa ku eedeeyay khasaaraha ka dhashay mudaharaadkii caawa inay mas'uul ka tahay xukuumadda Somaliland. Sidaasi oo kalena qaar ka mid ah magaalooyinka gobolka Awdal oo ay ka mid yihiin magaalada Saylac, Garbadadar, Xariirad, Boon, Qulujeed, Baki iyo magaalooyin kale ayaa iyagana waxaa laga soo sheegayaa in ilaa iyo caawa uu ka socday mudaharaadkani halkaasi oo ay dadweynuhu ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan go'aanka ay xukuumaddu qaadatay. Ibraahim Suxufi, Bulsha TV, Boorama.